madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumaddiisu si weyn uga diyaar garowday ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markuu kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada Somaliland guddi wasiira uu xil saaray arrintaasi kulankaasi kadib madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu la hadlay qaybaha kala duwan ee warbaahinta isagoo faahfaahin ka bixiyay siyaabaha kala duwan ee xukuumadda Somaliland uga hortagaysa xanuunka coronavirus. ilaahay mahadi maanta dalkeena wax uduruhu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airportka aynu tagnay ayna goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeena meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn baynu leedahay waddo waliba way furantay laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara markaa maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddadaas soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay ee lug inagu soo gala ilaahay manu ka magan gelina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheena anaga waxba ka dhicin ilaa imika meel laba rug caafimaadba wixii aanu xalay ku soo hooyanay sida xoolaha la raacana xalay maxaa lagu soo hooyay waaguna ku beriyey shalay maqribki wuxuu noogu dhacay tukaraq waxaa la baaray oo soo maray 109 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shakeeyo lama arag yube waxaa la baaray 10 qof oo soo maray controlkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen dhahar 9 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 9 qof wajaale 540 qof baa ka soo galay dhammaantood caafimaad qabeen wax lagu shakeeyo lagama arag berbera waxaa ka soo galay 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta baashar kama soo gelin waa caafimaad qabeen markii la baaray lowi caddo 138 qof baasan jara wax laga shakiyo laguma arag cigaal airport waxaa ka soo galay 262 qof wax laga shakiyo laguma arag tiradaas shalay galabtii waago gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodu waa la soo tabinayaa wali wax shaki oo kaysa mahayno waxaan soo qabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena ka soo dhawaaday doorto waxaan magacaabay 5 wasiir oo hogaaminaya arrinta oo shaqo qaran 5 wasiir oo kala asaagtiin oo hogaaminayso caafimaadku daakhiliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Somaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amar kama bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynaha waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka istaag taagno goorana ku xidhan waan aqbalaya cid ha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baacbishirkii toodu raacaya sidaa waxa ku jirta danteena saa nabad galo laga bilaabo imika maalin walba guddigan waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmay haddii alla yidhaahdo tallaabooyinka saa inoo soo socda iyagu maanta laga bilaabo sibay u hawlgelayaan gobolladana oo laga soconaya degmooyinkan waxaanu diyaarinaynaa meelo dadka lagu karantiimeeyo 6 magaalo ee waaweynba xadkeena dheer meelaha la tegi doona meelaha la isticmaalo ugu dad badan yihiin waxaan u diri doonaa caafimaad diyaarado badan ma lihin diyaaradaha yimaada waxa ugu badan taargeysa timaada ee baashir kasta inta ka soo galay xuduud ka badan dadka Itoobiya laga soo qaado 100 ama 200 bay soo qaadaan waa arkaysan wajaala ka xoogay wajaala 500 ka soo galay
labada boqol ka soo degay airportka waa bay urursan yihiin waa la ururin karaa waa la qaban karaa marka waxaanu haynaa xad lawi caddo ilaa iyo ceelaayo oo boosaasagteeda barsaa raaca xadka halkaa ka wareeg buu hodo dhaaf ka soo wareeg xadka xeebta dib ugu noqo xadka waxaanu kaga mid galanaa oo talaabo qaadanaa in dowladaha aynu jaarka nahay bari iyo galbeedba dhinaca bari waa Puntland dhinaca waa Ethiopia waa Djibouti inuu iyaga la yeelana xiriir aad iyo aad u midaysan oo colkan iska goodafaan Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa شركة ديسيسي ولا ريف سelection company وارجعنا اللي بقول